kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu door koranaya waxa kamid ah khudbadaha musharaxiinta aqalka sare oo maanta ka dhacaysa magaalada Kismaayo waxa fashilay waanwaantii Ahlusunna iyo Galmudug dowladda Soomaaliya oo madaxda IMF u faahfaahisay kasoo kabashada saameynta dhaqaale ee COVID-19 Kooriyada Waqooyi oo mar kale tijaabisay gantaalo ciidamada militariga oo howlgalo ka sameeyay Shabeellaha Hoose daawadadan cusubtaan ugu soo subscribe sar gambalka fur si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay aynu soo dhigno maalinimo Arbaca taariikhda ay ku beegantahay 20 Oktoobar 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala dhameystiran maanta ayaa waxaa la filayaa in xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ay dhageystaan khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa kuraasta ka harsan aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland musharaxiinta khudbadahooda maanta jeedin doona ayaa waxa ay gaarayaan ilaa 8 xubnood kuwaas oo ku tartami doona 4 kursi ee Jubbaland uga harsan 8 kursi ee Jubbaland kulli yahay aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya musharaxiinta aqalka sare ee maanta khudbadaha ka hor jeedin doona baarlamaanka Jubbaland oo 5 ay dumar yihiin ayaa waxay kala yihiin 1 Leyla Nuux Maax oo la tartamaysa Xareedo Maxamed Sheekh 2 Ibraahim Awgaab Cusmaan oo la tartamaya Farxiya Macalin Cabdi 3 Maryam Faarax Kediye oo la tartamaysa Samsam Maxamed Bishaan 4 Xasan Daahir Yarow oo la tartamaya Ali Maxamed Cali berri oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha Oktoobar ayaa waxa la filayaa in magaalada Kismaayo ay ka dhacdo doorashada 4 kursi ee aqalka sare uga harsan maamulka Jubbaland waxa fashil ku soo dhamaaday waanwaantii laga dhaxwaday Ahlusunna wal Jamaaca iyo maamulka Galmudug si loo qabuujiyo xiisada dagaal ee haatan ka taagan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud wararka ayaa sheegaya in fashilku uu yimid kadib markii ay Ahlusunna ka laabatay go'aankeedii hore ahaa in ciidamadeeda laga saaro magaalada in gaadiidkii ay ka qabsatay Galmudug wareejiso sida ay inoo xaqiijiyeen ilwareeda laga kalsoon yahay sidoo kale Ahlusunna ayaa ka biyadiiday in Gurceel laga soo celiyo maamulka degmadaas ee Galmudug sida aan xogta ku helnay waanwaantan ayaa waxa waday odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug waxaana gabi ahaanba hakad galay dadaaladii socday arintani ayaa ugu sii daraysa xaaladda cakiran ee haatan ka taagan gobolka Galgaduud taas oo u dhaxaysa Ahlusunna iyo Galmudug dhinaca kale wararka ka imaanaya Gurceel ayaa sheegaya in weli xaalad kacsanaan ah laga dareemayo magaaladaasi oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda Ahlusunna ayaa lagu soo waramayaa in ay haatan xirtay wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa magaaladaasi ciidamada dawladda ayaa dhankooda isku hareeyay Gurceel waxayna wadaan guluf ka dhan ah Ahlusunna wal Jamaaca wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa mar kale ka qayb galay shirka madaxda IMF iyo wasiirada maaliyadda ee dalalka Afrika shirkan oo ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ee Zoom-ka ayaa waxa diiradda lagu saaray sar u qaadida dakhliga gudaha iyo ka soo kabashada saameynta dhaqaalaha cudurka halista ah ee COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeeshay caalamka wasiir Beyle oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in madaxda ka qayb galay shirka uu faahfaahin ka siiyay siyaasadda dawladda ee ka soo kabashada saameynta dhaqaalaha COVID-19 iyo go'aanka joogtada ah ee sar u qaadida iyo dakhliga gudaha oo ah shayga ugu weyn dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu intaasi ku sii daray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya hanaanka dib u habeynta iyo hufnaanta maaliyadda Soomaaliya waa go'aan loo dhan yahay oo Soomaaliya gaarsiinaya isku filnaan haddii aan ku sii socono wadada aan hadda saaranahay wasiir Beyle ayaa marar hore ka qayb galay shirar looga hadlayay dib u habeynta dhaqaalaha dalka oo ay ku jirto saameynta uu ku yeeshay cudurka halista ee COVID-19 waxaana shirarkaas goobjoog ka ahaa madaxda IMF iyo wasiirada maaliyadda ee dalalka Afrika ciidamada militariga Soomaaliya oo ay wehelinayeen ciidamada maamulka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa saacadihii la soo dhaafay howlgalo isbaaro qaadis ah ka sameeyeen wadooyinka soo galaya iyo kuwa ka baxa degmadaasi howlgalka oo warkacayay gudoomiyaha degmada Walaweyn Ismaaciil Sheekh Abuukar waxaana ciidamada ay howlgalada ka fuliyeen deegaanada Caligaad Haakaw oo Cusmaan iyo Raama Kuulow wadada aada magaalada Baydhabo gudoomiyaha degmada Walaweyn Ismaaciil Sheekh Abuukar ayaa sheegay in uljeedka howlgalka uu ahaa in ay ka hortagaan maleeshiyaad si dhuumaalaysi ah isbaarooyin u dhigta iyo kuwa hub sharci darro ah la soo gala degmada Walaweyn sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu digniin u diray kuwa isbaarooyinka dhigta wadooyinka soo gala degmada Walaweyn ayna tallaabo ka qaadi doonaan isaga oo shacabka ugu mahad celiyay
sida ay ula shaqeeyaan maamulka. Howlgalkan ciidamada militariga Soomaaliya ka fuliyeen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada Wallaweyn ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay qaar ka mid ah bulshada degmadaas ay ka cabanayeen isbaarooyin dhowr ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa tan iyo markii uu la wareegay xilka waxa uu wajahayay xujooyin dhowr ah iyada oo midii ugu adkayd ee doorashada uu qarka u saaran yahay in uu ku gudbo. Waxaa xilligan muuqata in uu mirdhalayo dadaalkii Rooble ee doorashada oo bishii May ee sanadkan uu hoggaankeeda kala wareegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maamulka Jubbaland ayaa shalay soo dhameystiray xubnihii ka harsanaa ee aqalka sare iyaga oo ka jawaabaya baaqi ra'iisul wasaaraha. Sidoo kalena maalimaha soo socda ayaa lagu wadaa in Galmudug ay shaaciso liiska labada xubnood ee ka dhiman xubnaha ku matali doona aqalka sare. Beesha caalamka ayaa garab weyn u noqday dadaalada Rooble iyagoo u arka in uu yahay shakhsiga kaliya ee ka go'an tahay hanaanka doorashada iyo in ay waqtigeeda ku dhacdo. Rooble ayaa lagu wadaa in 48 saac ee soo socda uu shirqadka telefoonka ah uu la qaato madaxda maamul goboleedyada isagoo ka doonaya in muddo sax ah loo sameeyo bilaabashada doorashada golaha shacabka oo si weyn u daahday. Xogta ayaa intaasi ku sii daraysa in maamulka Jubbaland uu mar kale noqon doono maamulkii u horreeyay ee qabta doorashada golaha shacabka iyadoo sidoo kale lagu wada in ay ku xigi doonaan Hirshabelle iyo gobolada waqooyiga. Waxaa weli socda baaritaan lagu hayo dilka xildhibaan David Ames oo ka tirsan baarlamaanka UK kaasi oo jimcihii lagu dilay mindi iyadoo uu dilka loo qabtay nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cali Xarbi Cali. Dambibaarayaasha ayaa hadda isku dayaya in ay ogaadaan qofkii ugu horreeyay ee Cali uu telefoonkiisa ka wacay isla markii uu dilay xildhibaan Ames. Ilwaraadi amni ayaa wargeyska The Times u sheegay in Cali uu dirbadiiba uu dilay xildhibaanka la soo baxay telefoonkiisa kadibna wacay ama qoraal u diray qof hadda la isku dayayo in la aqoonsado xitaa iskuma dayin in uu goobta ka baxsado. Xiriirka uu isku dayay in uu sameeyo daqiiqadahaas waa faahfaahin muhiim ah. Dambibaarayaasha waxay isku dayayaan in ay ogaadaan qofkaas uu la xiriiray, ayuu yiri ilwareedka. Arrimaha ay suurtagalka tahay ee la eegayo waxaa ka mid ah haddii qofka uu Cali la xiriiray uu wax ka ogaa dilka. Dhinaca kale, Cali ayaa lagu waramay in uu toddobaad ka hor dilka samaystay ballan uu ugu qayb galo kulanka uu xildhibaan David Ames la yeelanayay dadka soo doortay ee deegaanka Lane-on-Sea oo ah goobta dilka uu ka dhacay. Xog kale ayaa sheegaysa in sababta fududeysay in la beegsado Ames ay tahay iyada oo kulankaas lagu xayeysiiyey baraha bulshada. Dambibaarayaasha ayaa weli helin sabab kale oo loo beegsaday David Ames. Cali ayaan isku dayin in uusan wax ballan ah la samaysto xildhibaan kale. Wargeyska Telegraph ayaa qoray in inkasta oo uu kulanka la ogolaa kaliya dadka degan Lane-on-Sea, haddana Cali uu shaqaalaha xildhibaanka u sheegay in uu halkaas u soo guuri doono, sida darteedna uu doonayay in xildhibaanka kala hadlo arrimaha ay ka midka yihiin daryeelka caafimaadka. Dagaal ka dhacay Jubbada Hoose iyo khasaare ka dhashay. Dagaal u dhexeeya ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Baarka oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Jubbaland ee deegaanka Baarka ku lahaayeen, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dadka deegaanka Baarka ayaa waxa ay sheegeen in si weyn uu u saameeyay dagaalka islamarkaana rasaasta ay labada dhinac iswadaarsadeen ay ku dhacaysay xaafadaha qaar ee deegaanka. Wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka uu ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidanka Jubbaland halka mid kalena uu ku dhaawacmay, kuwaas oo la geeyay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka Jubbaland. Wararkii ugu dambeeyay ayaa naga soo gaaraya deegaanka Baarka ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan, balse ciidamada Jubbaland ay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku baadigoobayaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee soo weeraray. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in taliska Pyongyang uu tijaabiyey gantaal balastig ah oo laga tuuray gujis. Tijaabadaas ayay khubaradu ku tilmaameen in Kuuriyada Waqooyi ay ka damacsan tahay in ay si degdeg ah u howlgeliso
gujisyada xambaara gantaalada. Warka ka soo baxay warbaahinta xukuumadda Pyongyang ayaa yimid maalin kadib markii ay Kuuriyada Koonfureed sheegtay in ay rumaysan tahay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal laga tuuray gujis yaala xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi. Dowladda Mareykanka ayaa ku boorisay Kuuriyada Waqooyi in ay joojiso daandaansiga. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa Talaadadii shalay sheegtay in dowladda Mareykanka ay u furan tahay in ay wada hadallo diblomaasiyadeed kala gasho Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda nuclear-ka. Intaas ayaan kusoo afmarina warka aad kala socoteen Samareeb TV. Inta warkan war lama kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.